Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo daris ah inkastoo ay ka dhaxayso dacwad heer caalami ah oo la xiriirta sheegashada gardarrada ah ee Kenya qayb ka mid ah badda Soomaaliya. haddana xaaladda xiriirka labada dawladood waxa uu ahaa mid wanaagsan. waa maxay sababta xiriirka labada dal uu u xumaaday? tan iyo markii ay soo bilaabatay dacwadda badda dhowr mar ayuu hakad galay xiriirka labada dal 7 sano ee la soo dhaafay. Soomaaliya waxay ku taagneed dhabaha diblomaasiyadda iyo in si nabad ah lagu dhameeyo dacwadda labada dal iyadoo loo marayo qaanuunka caalamiga ah. maxaa la isku hayaa maanta? faragelinta siyaasadda gudaha maaha Kenya waxa la faragelinayo ee waa Soomaaliya arrimaheeda gaarka ah. qalqalgelinta amniga qaranka Soomaaliya sida abaabulka maleeshooyin soo weerara gudaha dalka. labada arrin ee aan soo sheegnay waxa ay ka dhan yihiin xeerarka caalamiga ah ee xiriirka dawladaha caalamka ee ilaalinta gobonnimada dhuleed iyo midda siyaasadeed ee uu qaran waliba leeyahay. haddaba maxaa ka dhaba eedaha Kenya loo jeediyay? 29 November 2020 Soomaaliya waxa ay wadatashi ugu yeertay safiirkeeda Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan halka ay fartay safiirka Kenya ee Soomaaliya in dib dalkiisa uu ugu laabto wadatashi. waxaan la tashi ugu yeeranay danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsan oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya. waxaana la farayaa danjiraha Kenya u fadhiya dalka Soomaaliya mudane Lucas Tombo in uu dalkiisa wadatashi ugu laabto. dawladda federaalka Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la soo fargeliyo ama lagu dhaqaaqo fal kasta oo wax u dhimaya madax bannaanida iyo deganaanshaha dalkeena. Kenya marna ma garwaaqsan dareenka dhaliyay dib isu celinta safiirada labada dawladood. 15 December 2020 dawladda Soomaaliya waxa ay xiriirka u jirtay Kenya. haddaba maxaa sababay? dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka duulaysa madax bannaanideeda qaran ee uu damaanad qaadaya xeerka iyo qaanuunka caalamiga gudanaysana waajibaadkeeda dastuuriga ee ka saaran ilaalinta midnimada qarannimada iyo xasiloonida dalka. waxa ay go'aansatay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dawladda Kenya. dawladda federaalka Soomaaliya waxay u gaartay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee isdaba joogga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay ee dawladda Kenya ku haysay madax bannaanida dalkeena. maalmo kadib markii xiriirka loo jaray Kenya 19 December 2020 dawladda Soomaaliya waxay qoraal ay soo saartay ay ku eedeysay Kenya abaabulka maleeshooyin ay dawladdu sheegtay in lagu diyaarinayo Mandera si ay u soo weeraraan ciidanka qaranka Soomaaliya ee jooga balad xaawo. 25 January 2021 waxa rumowday eedihii dawladda Soomaaliya ee Kenya u jeedisay kadib markii maleeshiyo abaabulani oo ka soo baxay Mandera ay soo weerareen magaalada balad xaawo. dad Soomaaliyeed oo la khalday oo u shaqaynaya gumaysi oo ka soo duulahaya dal shisheeye ah gudihiisa ka soo duulahaya ayaa waxay soo weerareen xalay ama soo galeen magaalada balad xaawo. runtii muddo intaa ka horreysay oo ay naga soo horjeedeen oo ku jireen xuduudda dalka Kenya waxaanu aad uga xishoonaynay annagoo qadarinayna sharciyada adduunka in aanan ku weerarin meeshooda. laakiin nasiib wanaag ayagii baa godka ka soo baxay. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyay. waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhaddii fallaagada ahayd 100 in ku dhow. 30 sano kadib Soomaaliya waa libaax qoyan bisad hamoodin. waxay si madax bannaan u qaadanaysaa go'aanadeeda diblomaasiyadeed waxayna maareynaysaa siyaasadeeda gudaha.